waxaynu inta badan maqalnaa qofkan keliyiisu ayaa fariistay ama keliyaha ma u shaqeynaya. haddaba waxaan doonayaa inaan kula wadaago 5 ka mid ah caadooyinka dhaawaco ama wadilo keliyaha. waxaa hubaal ah haddii aad 5tooda wada lahayn inaad mid ama 2 ka mid ah leedahay caadooyinka. haddaba intaan u gudgalin, haddii aadan isoo follow gareynin, follow isoo dheh. sidoo kale muuqaalkan laagsaar si uu dad badan u gaaro. sidoo kale qaybta hoose commentiga ku soo qor halkaad iga daawanaysa. haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya, cabista biyaha yar. waa waxyaabaha ugu horeeya ee dhaawaco. cabista biyaha yar, oonka iyo fuuqbax. qodobka labaad, waxyaabaha keliyaha dilo waxaa ka mid ah qaadashada daawooyinka bilaa dhakhtarka ama daawooyinka aanan kuu qoran dhakhtarka, gaar ahaan kuwa kaarjibinta amaba xanuun baabiyaha oo aad si fudud aad u qaadatid. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha keliyaha dila ama dhaawaco xakameyn la'aanta cudurrada daba dheeraada sida cudurka macaanka ama sokorta, dhiig karka. cudurradaas haddii aadan mar walba ka warheynin oo aad mar walba la soconin ama aadan xakameynin, waxay keeni karaan inay dilaan amabay dhaawacaan keliyaha. sidoo kale waxaa keliyahaaga dila amaba dhaawaco isticmaalka muqaadaraadka sida shiishada, sigaarka, qaadka iyo qamriga. iyana waxay dilaan ama ay dhaawacaan keliyaha. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha keliyaha dila amaba dhaawaco cuntooyinka ay ku badan yihiin milixda amaba cusbada, waayo waxay keenaan inay siyaadiyaan cadaadiska dhiigga amaba dhiig karka ayay keeni karaan, taasoo sabab u noqon karto inay dhaawacaan keliyaha. fadlan ka taxadir guud ahaan qodobadii aan soo sheegay. waa inaad cabtaa biyo kuugu filan maalin walba, ugu yaraan 12 koob ama 3 litir oo biyaha. sidoo kale waa inaad ka fogaataa cunooyinka ay ku badan yihiin milixda amaba cusbada. sidoo kale waa in aad gebi ahaanba joojisaa daawooyinka bilaa dhakhtarka qaadanaysa oo aad si fudud farmasiga inaad ugu soo iibsato aad qaadanaysa. iyana waxaa loo baahan yahay inaad joojiso. fadlan ka taxadir guud ahaan qodobadii aan soo sheegay. waa inaad cabtaa biyo kuugu filan maalin walba, ugu yaraan 12 koob ama 3 litir oo biyaha. sidoo kale waa inaad ka fogaataa cunooyinka ay ku badan yihiin milixda amaba cusbada. sidoo kale waa in aad gebi ahaanba joojisaa daawooyinka bilaa dhakhtarka qaadanaysa oo aad si fudud farmasiga inaad ugu soo iibsato aad qaadanaysa. iyana waxaa loo baahan yahay inaad joojiso. fadlan ka taxadir guud ahaan qodobadii aan soo sheegay. waa inaad cabtaa biyo kuugu filan maalin walba, ugu yaraan 12 koob ama 3 litir oo biyaha. sidoo kale waa inaad ka fogaataa cunooyinka ay ku badan yihiin milixda amaba cusbada. sidoo kale waa in aad gebi ahaanba joojisaa daawooyinka bilaa dhakhtarka qaadanaysa oo aad si fudud farmasiga inaad ugu soo iibsato aad qaadanaysa. iyana waxaa loo baahan yahay inaad joojiso.